السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan maanta nagu hayaa asxaabteeda qaaliga barnaamij yar oo dhacay oo bardhawita dhacay taas aan isku dayay inaan iniga nila wadaago qisadaas dhacday waxay ka koobnayd qoys isqaba oday iyo islaan ah waxa dhacay mararka qaar inay marmaan waa ka aqoon badanahay igaba aqoon badnid waan ku waali iyo ima waaleys waa qoyskii isqabay dhexdooda wuxuu doodaas ay ka dhacday waxa labadii qof iyo labadii qoys isqabay say ku kala guuleysanayeen oo gaaban oo qisadana ila daawada waxa dhacday gabadhii ninkeygii markay isku dhaceen inay ku tiri haddii aan ku waali waayo waad arki doontaa iyo haddii aad waashid waad arki doonaa qisadaas dhacday gabadhii waxa ay go'aansatay inay ninkani ay ka rawaayadaysato ay tusto inta ay ka xeelad dheer tahay ay ka maskax badan tahay wiilkii waxa isagana qabsaday bal waxay keentaba arag la biyo guri ayuu go'aansaday dabadeed waxa dhacay qisadu say tahay waxa dhacay wiilkii iyo gabadhii isqabay inay gabadhii ay orodo iyadoo uu la dagaalamin uu dilin inay orodo ay tolkii u tagto tolkii markay u tagtay ayaa ku tiri ninkii waaligu albaabkii waalida garaacayay kaalay oo iga xidhxidha markaas tolkii la yaabeen gabadhanini tolka way u fiicnay way soo dhaweyn jirtay way jeclay way martigelin jirtay wax walba la qabanaysa waxa dhacay gabadhii in hadalkeygii la ixtiraamo la tixgeliyo gabadhii waa la soo raacay ninkii oo aqalka fadhiya loo yimiday waa kana ninkii iga xidhxidha tolkii lagu sheekaysanine inta tolkii ay qaadeen ayay ninkii geed ku xidhay geed aqalka yaalay ayay ku xidheen geedkii markay ku xidheen ninkii ayay ka soo laabatay iyagiina ay tolkiina ay socdeen geedkii kale ay hoos fadhiisteen markay geedkii kale hoos fadhiisteen tolkii waxa qabsaday ninkii intay ku soo laabatay ayay ku tiri xaar intay soo qaaday wiil yar ay dhasheen ay soo qaaday darina ay soo qaaday ayay u keentay markay u keentay isagii bay ku tiri waa adiga arkay maaha adigana waan ku waalay tolkaana xaar baan u karin tolkaana xaar iyaan u karin markaa ka soo laabatay gabadhii tolkii bay u soo noqotay darigii bay cuntadii karisay way soo diyaarisay waa u keentay iyadoo sida ayuu sheeda ka arkay markaa uu yiri tolkaya waa culina xaar bay maanta idin karisay xaar bay maanta idin karisay markaa bay la yaabay tolkii ninkii markaa bay ku tiri tolkayow waxa bay haystaan adarkaysiin waxa adarkaysiin ayay haystaan sidii bay sheekadii tolkiina ay arintii ku galeen markaa bay tolkii markay ku hoydeen habeennimadii isagoo geedkii ku xidhan iyo ku tiri adigana waan ku waalay tolkana waan ka samaystay markaa uu ku walaashayay waad iga badisay ima turine inaan waalanahayn waad tustay marun xariga iga fur sidii bay gabadhii xarigii kaga furtay sidii bay qoyskiina ku heshiyeen sidii uu isagnaa hadalkii iyo guuxii badnaa iyo qayladii iyo dilkii u geysanayay gabadhii kaga daayay markaa dumarku inay ragga ka xeelad badan yihiin hore waa loo sheegay markaa qisadaasaan jeclaystay inaad ila wadaagtaan ood ila daawataan waana nin soo koobo qisadu soo dhacday markaa asxaabteeda qaaligay dumarka lama laayo lama dilo lama caayo lama handido lama hanjabo naxariis iyo farsamo iyo xeelad iyo lagu dhaqmaa iyo aanu noodhan lahaa wixii tala ah qisadaas la daawada barnaamij lamida intaan soo gudbin doono sidaas iyo arag dambe oo xiiso leh intii ku cusub channelkeena subscribe ha saarto like ha saarto share na geliso waad mahadsantihiin waana jeclahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu